دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوميها حسبك معارض كوطني ومدوين كودن بي سفر ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee magaalada Hargeysa waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi iyo waliba qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ugu horeyn dalka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani xildhibaan Cabdiqaadir Jirde waxa sharaf noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga iyo Faadimo Saciid oo wafdi dibadda ku maqnaa shirka ka soo qayb galay waxa kale oo ina sharaf weyn noo ah inaan ku soo dhaweyno halkan inaan maalintii hore la kulmin hogaamiyaha xirsi gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdirasaaq iyo xogayaha Khadar oo yana cimradii ka yimi yana soo dhawaada ayaanu leenahay dhankiisa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ugu horeyn ka hadlay kulamo kala duwan oo la soo qaatay qaar ka mid ah dawladaha Yurub iyo waliba diblomaasiyiin shisheeye gudoomiyuhu waxa uu sheegay intuu safarkaasi ku guda jiray inuu cid kasta oo la kulmo uu ka dhaadhicinay qadiyada madax banaanida Somaliland sidoo kalena waxa uu ka hadlay dagaalada u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka Puntland ee dhawaan ku dhaxmaray deegaanka Tukaraq ee ka tirsan gobolka Sool iyo waliba beelo walaalo oo iyaguna dagaal ku dhaxmaray deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxaanu sheegay in arrimahaasi nabad lagu dhameeyo hase yeeshee waxa uu carabka ku adkeeyay in xisbiga mucaaradka wadani uu taageersan yahay ciidamada qaranka Somaliland waxaanu safar shaqo ugu baxnay aniga iyo xogayaha xuquuqul insaanka iyo arrimaha genderka xisbiga Marwe Faadimo Saciid dalal ka mid ah qaaradda Yurub oo ay ka mid ahaayeen dalka Belgium dalka Sweden dalka Denmark iyo dalka Jarmalka dalalka waxaanu kula kulannay madax kala duwan waxaanu ka qayb galnay shirar kala duwan waxaanu guud ahaan kala hadlaynay arrimaha Somaliland iyo qadiyadeeda waxaanu kala hadlaynay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada arrimaha horumarka arrimaha doorashooyinka arrimaha shaqo abuurka iyo isboortiga kulamadaasi runtii si wanaagsan bay noogu qabsoomeen waxaan isleenahay oo dadaalka loogu jiro Somaliland iyo baritaarkiisa ayuu qayb muhiim ka ah safarkan waxaad moodaa maqaamkii arrimaha dibadda ay ka joogtay Somaliland inuu hoos u dhacay muddooyinkii dambe ee xukuumadan kala dambeeyay joogeen laakiin waxaan uga baahanyahay dadaal intii ka badan inaynu sameeyno guud ahaan shacbi iyo axsaab iyo qurba joog dhammaanteen waxaan ilaahay ka barayaa in dhammaan colaadaha oo inaga damiyo hadday yihiin kuwa Ceelaf Weyn ka jira iyo hadday yihiin kuwa Tukaraqba xisbigu qarankiisa iyo ciidankiisaba si buuxda u garab joogaa laakiin waxaan ku talinaynaa kulliba qaybna ka qaadanaynaa inaynu dhammaan colaadaha nabadayno xisbiguna gabagabadiina waxa uu sheegay in xisbiga mucaaradka wadani uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka soo socda waxaanu ku celiyay in xisbiga mucaaradka wadani aanu ku kalsoonayn guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland soo noqon xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato oo si buuxda uga qayb qaato doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka hase yeeshee waxa ka warqabtaan in xisbigu uu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka marka sidaa daraaddeed sinaba u suurtageli mayso in commission lagala noqday kalsoonidii doorashooyin dambe ay noo qabto shada safarkan gudoomiyahana waxa ku wehelinayay xogayaha arrimaha xuquuqda ee xisbiga mucaaradka wadani Marwe Faadimo Saciid iyo waliba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan Cabdi Fataax Ismaan telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa